والمعصمتها يا عبد الفتاح من نمو. وهي عالم كالراديو السمدون وقدور كرون وحاكمده رئيس وزراء دولة كوميل غاركا الصومالية او قدل بدأ يرقد الصوح ليس بارلمان كالصومالي ان الصوح لان كوا كرتي يهفنان بولس لمركان حارضر كالصومالي وحكا بدري كرا لما يرى كودا قان ودن كسود افريكا يا waxay ka cabanayaan shaqalaan soo wajahday iyagoona sheegay in shaqooyinka halkaas la isku siiyo qaab aqooneed. abwaanka kooxda qeylana cabdishire jaamac iyo abwaan awliya si heer sare lagu soo dhaweeyay magaalada muqdisho. waa qaybo ka mid ah warkeena haatan ku soo dhawaada sabi oo fidsan. warkii oo fidsan. dhalinyarada ku dhaqan wadanka South Africa ayaa waxay ka cabanayaan shaqo la'aan soo wajahday iyagoo sheegay in shaqooyinka halkaasi lagu bixiyo qaab aqooneed. warkaana faahfaahsan waxaa noo haya wariyaheena Maxamed Cabdulqaadir. dhalinyarada ku nool wadanka Koonfur Afrika ayaa waxay ka cabanaysaa xaalad adag ee kala soo gudboonatay dhanka nolosha iyadoo wadanka Koonfur Afrika ay ku nool yihiin kumanaan dhalinyaro Soomaaliya kuwaas oo ka soo haajiray dagaalada sokeeye ee Soomaaliya afeeyay iyagoona maciin biday inay nolol dhaanta tan Soomaaliya u soo raadsadaan wadamada dariska la Soomaaliya iyo waliba guud ahaan caalamka oo qaxooti ahaan looga ictiraafsan yahay. wadanka Koonfur Afrika oo ah wadan ay Soomaali badan ku nooshahay ayaa muddooyinka ugu dambeeyay soo tariyay shaqo la'aan baahsan oo la soo gudboonaatay dhalinyarada ku nool wadanka Koonfur Afrika kuwaas oo ka cabanaya in qaarkood ay shaqeyneen muddo ku dhawaad 5 bilood. dhalinyarada oo aan mikrofoonka kula dhex qaadnay ayaa inoo sheegay qaarkood in shaqada ay noqotay xilligaani mid aad u adag kaasoo ay ku micneeyeen in wadanka Koonfur Afrika ay si saayid ah ugu soo bateen Soomaalida khaasatan dhalinyarada iyo waliba shaqooyinka oo noqday kuwa la isugu raadinayo qaab waji aqoonsi ama qof kastaba qofkiisa kale ku raadiyo. mid ka mid ah dhalinyarada ku nool wadanka Koonfur Afrika khaasatan magaalada Johannesburg oo aan mikrofoonka kula gaarnay xilli uu ku caweynayay meel ay dhalinyarada isugu yimaadaan ayaa inoo sheegay inuu shaqeynin ku dhawaad muddo 5 bilood ah taasoo ku micneeyay in wadanka isbedel xoog loo ku yimid marka loo eego dhanka ganacsiga iyo waliba shaqooyinka la heli jiray taasoo ku eedeeyay in Soomaalida ay yihiin dad intooda badan isugu raadiyo shaqada in adeernimo iyo waliba qofka kale oo waji garanayo. wuxuuna hadalkiisa intaas ku daray in iminka uu doonayo inuu isaga musaafiro dalkaani Koonfur Afrika uusan ku haynin shaqo iyo waliba toona nolol maadaama wadanka noloshiisa ama maciishadiisu ay tahay mid aad u sareysa. mar waa arrimahaasi ka hadlayay hadaladiisii waxaa ka mid ahaa wallahi maxamedow dhibaatooyinkaas way iska fara badan yihiin. waxaa ka mid ah shaqo la'aan aad u fara badan. waxaa kaloo ka mid ah qofba qofkiisa inuu shaqada ku raadsanayo aqoon daraadeed. muxuu ahayto dowladdiioo meelaha qaarkood xirtay shaqooyinkiina iska adkaadeen. muxuu ahayto dhallinyaradii Soomaaliyada wadanka kusoo batay qaarkood hadda ay iska laabteen oo wadanka dib iskaga laabteen. muxuu ahayto dadkii meelaha qaarkood markaa shaqo hesho waxaa iska jira mataqaanaa shaqooyinka inay riski yihiin oo mataqaanaa lacagtooda aad u yar tahay haddana aad u dhib badan tahay. marka sidaa daraadeed anigii la fahantii hadda ma aanan shaqeyn muddo ku dhawaad 5 bilood ilaa hadda baagamuudaan ahay. waxaan rajaynayaa in iskaga laabto wadanka sababtoo ah shaqana kuma hayo camalna kuma haysto marka inaad iskaga laabtaan jeclaan. dhanka kale waxaa jiray qulqulka dhalinyarada Soomaalida dib ugu laabanaysa dalka Soomaaliya kuwaas oo gebi ahaanba isaga musaafiraya wadanka Koonfur Afrika. dhalinyarada laabanaysa ayaa qaarkood waxay ku micneeyeen in sababta ugu weyn ay tahay in wadanka iminka uu sii dhamaanayo ganacsigiisii uuna sii liito iyagoona intaas ku dareynay ku dheer tahay geerida habeen walba muwaadin Soomaaliyeed oo la soo sheegayo taasi oo marka loo eego aysan waxba dhaamin Muqdisho oo xabad ka dhacaysa in habeen walba aad hooyatid laakiinse ay ka daran tahay geeridaada oo kugu timaata in lagugu dilo wadanaada ugu dhalan iyo dadkaagii oo aad ka maqan tahay. wadanka Koonfur Afrika ayaa waxa uu yahay wadan si weyn loogu dhibaateeyo hantida iyo waliba nolosha muwaadiniinta Soomaalida taasoo salka ku haysa jirnaceebka iyo waliba ganacsiga Soomaalida oo si weyn u gabca meelaha ay businesskooda ku biiraan. Maxamed Cabdulqaadir Cilmi Radio Samadoon Johannesburg Koonfur Afrika. رئيس وزراء دولة كوميل غاركا الصومالية ayaa waxa uu ka dalbaday ergada soo xulaysa baarlamaanka Soomaaliya inay soo xilaan
ergey aqoon iyo kartiba u leh inay dalka Soomaaliya ay wax ka bedelaan. رئيسل وزراء حكومة دوكميل جاركة سوماليا بروفيسور عبد الولي محمد علي جالسة هي كذا البضيع وضياش دقن كسوماليات إن دتك يصح ليانا إرجدا هاي نقدان دت أقل ما وكترجمية مصلحة دومة الصوماليات وعنا رئيسل وزراء شاقين إن وضياش دقن كيصح ليا إرجدا ينسحن لي دستور كعسوب إدلك يحبنا عسوب يقولها برلمانك هاي نقدان قوة على سلوك جد بمرحلة دوكميل جاركة إسلام كان الله للدولة شوكته dhinaca kale ra'iisul wasaaruhu waxa uu beesha caalamka ka codsaday inay si laba jibaaraan dadaalka ay ku caawinayaan dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed. halkan ku dardaarmaya oday dhaqameedka Soomaaliyeed inay la yimaadaan adkaysi dulqaad iyo samir oo ay maskaxda ku hayaan in shacbiga Soomaaliyeed iyo beesha caalamkuba ay indhaha ku hayaan sida ay soo xulaan shakhsiyaad u qalma inay ka mid noqdaan ergada ansixinta dastuurka iyo baarlamaanka cusub oo karti iyo hufnaan إلى إني دلك مرحلة كسران وأمد أمور سيدان نبض برواقو إيوه هرمر وحان بيش عالم كعصنا إنا إني تاغيرات وذا شوكتها وقت الحساسي لها أسي كرديان سان أولا ما يستخنو انت ير هذا الكرئيس الوزراء دلك ayaa yimid xilli magaalada Muqdisho maalintii shalay ahayd uu ka furmay shirka odayaasha dhaqanka iyadoo shirkaasi laga rajeynayo inuu noqdo shirkii ay ummadda Soomaaliyeed ugu bixi lahaayeen ku meel gaarnimada. abwaanka kooxda Qeylana Cabdishire Jaamac iyo abwaan Awliyo ayaa si heer sare lagu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho. waa boqolaal dadweynaha oo si weyn uga dhex muuqdeen bahda fanka Soomaaliyeed oo ay horkacayeen abwaano Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa saakay xilli hore gaaray garoonka diyaaradaha Aadan Cadde International Airport ee magaalada Muqdisho si ay u soo dhaweeyeen abwaanka caanka Cabdi Shire Ciyaar Jecel iyo Maxamed Xuseen Abuukar Awliyo oo ka mid ah abwaanada Soomaaliyeed muddo fara badan dalka dibadiisa ku noolaa kuwaas oo maanta soo gaaray magaalada Muqdisho. maariyaha tiyaatarka qaranka Soomaaliyeed abwaan Cabdiduux Yuusuf oo ka mid ah abwaanada maanta garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ku soo dhaweeyay abwaanadaasi ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay oo uu muddo sugayay waxa uu maarayuhu sheegay in bulshada ku nool Muqdisho ay in muddo si wanaagsan ula socdeen suugaanta uu hal abuuray abwaan Ciyaar Jecel. runtii aad baan ugu faraxsanahay maanta in lagu soo dhaweeyo laba abwaan oo qaali ah oo nooga yimid dalka UK waa kuwa hareeraha iga taagan waad maqli jirteen ayagoo ummadda Soomaaliyeed dibadda kala hadlaya laakiin nasiib wanaag maanta waxaad arki doontaan dareenkii ay ka muujin jireen dibadda inay maanta idinla joogaan waa idinkala soo qayb galeen halkan oo naftooda iyo maalkoodaba u hureen inay yimaadaan Muqdisho caasimadda Soomaaliya oo ay ummadooda wax la qaybsadaan u yimaadeen halkan ayaal abwaano Soomaalidu way sugaysay waxay aad ugu raaxaysan jireen marna ku ooyi jireen suugaantiina iyo dareenka wanaagsan oo aad u muujin jirteen. abwaan Cabdi Shire Ciyaar Jecel oo bahda saxaafadda kula hadlay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu imaado magaalada Muqdisho muddo 24 sano kadib waxa uu tilmaamay in uu ka qayb qaadan doono isu keenida ummadda Soomaaliyeed oo muddo 20 sano colaado ay ragaadiyeen. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا واحد هلك كسلام يا أمد الصوماليين ملك استي جوكتي حالات كستي كسوغنت هاي مركحية وحنا مهد علينا إياه ضدك فراغ بدن ما يعني كسو كوبي كرم مسؤولية قرنك كوشران دليرو فنانين صاحبه سيدو وناكسن نوغسو دويي مقالة مقدشو أيان مهد علينا إياه إنت مركا كقدو waxaa laga yaabaa dadku inay leeyihiin maxaa Cabdi Shire iyo Awliyo maxaa keenay dalkan Soomaaliya Awliyo isaga ka hadli doona adigu laakiin aniga sidoo la socotaan dalka waxaan moogaa 24 sano
1988 ayaan ka tegay airportkan ka duulay anigoo raacay diyaaradda Somali Airlines waad garan karaysaa Afriil nin dalkiisa ka maqan marka waxa ay keenay arrinta ugu horeysa waxa waa ilow aan dalkayga hooyo u qabo inaan micnaha maruna indhaha ka qaado ilaahayna waa ii suurtageliyay qodob labaad oo muhiim ah oo isleeyahay waa sabab isna waxa weeye sida la socotaan dalka waxa ka jira dhaqdhaqaaq siyaasadeed kala guur barnaamij la yiraahdo anigu waxaan iraahdaa kala guurka kelmadda hal lagu bedelo isbedel maxaa yeelay dad kala guuray hadda waad garan karaysaa si la isku soo celiyo waad kaanaysaa marka barnaamijka isaga oo isbedelka inaan ayana ka qayb qaadano intii karaankaya aan ka qayb qaadano ayana midna qorsheyn ugu jirta abwaan owliyo ayaa isna dareenkiisa imaanshaha magaalada muqdisho ku cabiraya suugaan uu ka diyaariyay xaaladda dalka nin muwaadinaan ahay muddo kaa maqnaayo sidii garmaqaarey muxubbadu ku raagto lagu maalay toobto muusanaabayaan ahay muqdisho ima nabadba waxaa tahay magaaladii lagu wada midoobe maandeer xorriyadii meeshii lagu yagleele muuqaalka quruxda ee moolo uu ku siiyaan marna kugu hilmaamayn maxaan xiise kuu qabay muqdisho ima nabadba maxaan murugay iyo caro yurub kula maqnaayo maankaygu xamarey adi kugu mashquulo murugo iyo ciil badan ku martiyay shisheeyo aan ahaa mid liitiyo masaakiin qaxootiya wooloor maquustaa mooryaan wax dile iyo madaxduubta jamba iga kaa mamnuuce maalinkaama dhoofeen maxaan xiise kuu qabay sidoo kale abwaan cismaan cabdullaahi guure ayaa isna goobtaasi ka tiriyey suugaan uu ku soo dhaweynayo abwaanada maanta soo gaaray magaalada muqdisho waxaan ku kaasanaynaa maanta ciidda Soomaaliyeedna waa ay joogaan calankii Soomaaliyana waa ay ugu yihiin marka waxaan leenahay waxaan mawla ku qorin muran iyo dagaal iyo meehanaw qabiil iyo madfac lagu meelayo Allah bixiyo maamuus maqaamka iyo sharafka iyo magac iyo awooduna mulki ee baweeyo Allah maamulka iska leh marka maqaam iyo sharaf Ilaahay siiyay ayaad maanta ku soo dhaweydeen ma wada baabi'i doono baaqi baa hari doona intii naga badbaadana berri way xisaabtamay cid kasta oo ummadeena wax u gasha waa ku xisaabtamaynaa waa ku sarfaynaa waa ku soo dhaweynaa waana ku garab taaganahay imaanshaha abwaanadani Soomaaliyeed ayaa ku soo aadaya iyadoo xilligan isbedel la taaban karo uu ka muuqdo magaalada Muqdisho isla markaana ay ku soo qulqulayaan dalka siyaasiyiin aqoon-yahano iyo dad kala duwan oo muddo ka badan 20 sano dalka dibadiisa qaxooti ahaan ugu noolaa warkii oo aad kala socoteen raadiyo Samadoon oo anigoo Axmed Taajir in soo tabinayay halkaasi ayuu nooga eegyahay tan iyo kulantideena dambe waxaan idinkaga tegayaa sida iyo nabad